وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواذا برنسس أمران برو هدايا وحسوستان تلفونكي أنا قدمي. That's why أقبحني ضمير على السوعد كيس والله خيا سو الميز إن كرا بها وضدا كسوق قاطي بل هل عنق للجري وضدا كسوق قاطي لو عنق بدل كسوق قاطي لو ما لك سوق قاطي صدق وضم ما لك سوق قاطي أفرشن لح وضم ما لك سوق قاطي نعم ضمير على السوق المهن dad badanna meeshan ku jira wareersan yihiin waxa taagan yihiin adigoo gabar Soomaaliyeed difaac iyo muhaayo gabar kala haayeen anigu gabar ma aayin gabarna ma aflagaadeeyo mana aayo laakiin afkiisa wixii ka soo baxday gabadh aanu ma hiwaysineysatay ama way ka macsiyeysatay ninkan hadduu isaga ilmihiisu inkiray uu leeyahay wadadan ka soo qaatay 30 second buu dhalnaa 8 second buu dhalnaa hebelay second buu dhalnaa de waxa weeye ilmaha ka yar inuu ku dhago qalad weeye 1000kii haday markay soo galeen codkiisan idin daaraya wadageysanaysan isagoo ilmihiisa xaraan ku tilmaamaya isagoo ku tilmaamaya waynu soo qaadana waynu soo helnay kambeenu yeelnay kii kale isagoo tiisa haysanin meel iyo mid kale meel u dadeeyayo dad kale inuu aflagaadeeyo JFA wax sameeyo rabaa war soo gala idin daaraya baar cala soo guri islaameed buu xoog ku haystaa gabar islaameed oo la yaqaano aabahay dawladda Soomaaliya ka tirsanaa guri xoog kaga haystaa middle man buu jilayaa dad qof u dhaxeeyo jilayaa qof u dhaxeeyo ma aragtay iyo dilayaa حاوي لكن عد كيس واقن وندين دار يا كل يدين كهدو أنت كذلك سوق اللي دونتنا كذلك كذا وط أنت هذا جوكتنا هذا وطو وحنا كهر مرة كليب كأه السوق عنو جيس إنكريا أو ضحية عنو جن وسوقاتي أنا كمان دلين ملول بانسي كبلو بانسي كم بانسي ميت كهر وين نقارن هاي ميت لواد بوهدنا له السجن هو يدي سو ديل الربطة وإيه ما طيب وكله العق السي يقول ده المهس كجسر صار أو qof gabar Soomaali ma intee ku imaad ku dhahaysa lacag si ilmahayga ku soo dilo miyuu ku soo dhiiran kartaa bal dhageysta ninkan weyn wuxuu inoogu sheekeen rabo dhageysta daahir calisow ayabtaada waan qariyay saaxiib oo waan qariyay oo laba waan waa qarin kari waa intaan ka badan adigiiba ilmaha yaraa iskaga daba laalaadinaya adigiiba xaasaskii la qabay kaafakan la yihiin ma garanaysaa adigiiba wax isku fali kari waaye aniga hadaa maanta dayaxdal nuurshi adigiis haysataan idin soo dhaxgalo markaa waa daciifnimo laakiin dayaxdal nuurshi xaaskiisa inaad afaaraheeda gashid ama gabar Soomaaliyeed oo la qababa labada nin rag way isqaban karaan laakiin in loo sii gudbo xaasaskii loo gudbo adigiyo awlba aadan meel haysanin oo ma garanaysaa diinta Ilaahayna isaga baxay walaal oo diinta Ilaahay isaga tagay burcadnimo iyo mooryaannimo iyo qaa'innimona lagugu soo koriyay oo guri islaameed ah ilaa hadartan guryaha leedahay daarood ba iskala guri daaroodkii u dhidideen saaxiib macaan dhididkooda ee guryaha maxaa kugu dhajiyay gabadha maskiinta calaacalaysa ilaa hadda gurigeeda aadaseen $1 ilmahaadi baad u tuugsanaysaa ilmihii aad garacnimada ku dhashay adiga afkaada aad ka sheegaysid yaad u tuugsanaysaa oo aad leedahay ilmahayga gabadha maskiinta way ka naxday $1 bayna cunugeeda u dirtay cadeynteedana waa tan bal dhageysta Soomaaliyeed assalaamu calaykum bo wa fiicana alxamdulillah $1 wiilku waa u diray kaaha u dhigay اوكي وحواي عبد القادر شريف حسين وحو كنت ألاس صوتي لندن اكسبرس فروم لندن UK ميا ويلكاغا ميا hadda la weydiinaya dhageysta wiilkaaga miyaa wuxuu ku jawaab fiiriya wiilkiga waa saa u kasay ma sha Allah wiil weyn oo lacag loo diri karo ma qabtaa ninkaas aniga asoo yar oo meel lagu tuuray ayaa soo qaatay ma fahamtay asoo markaas soddon daqiiqo ka yar muu tuuray ma aqaan oo meel ka soo baxay oo gurway أنا نير وثيقة هويدي أو بيستي وكورساتي أنا كورسين جري بس أنا ما جري أقول ما ديها ما كان وحاس نيجي أتنا إلى جوات الصدر لصانه وإلى جه ما فهمت بس كل كهري كله دراسة كقاطي كم معلو قديستي والله عطي الكاسة ما كاسة هنجي بنك سلام وشقية الله أبو مسكين
hooyadaa waa dhimata ma dhaad marka cunugaasi malaa $1 milyan ay gasho waxbarashadiisa iyo noloshiisa faan badana wallaahi faan badana saddex ku tijaarjay ilmihiisa hadda ku tijaarjay sabti tijaarjay wax kasta u baahan yahay allah buu wax sheeganaa wax sheegta male asaga marka asima ogyahay marka inaad dhal habartaa waa dhimata maatel horta waxaan dhaha beriga dagaala isku beddemishaa ha alla laakiin diiniin in loo sheego waa la dhehee diiniin in loo sheego waa mal dhihino hadii loo sheego qododa gelaysa iyo waalantaadu cuqudadaa galaysa laakiin hadhow dhaxalkaaga magaas ku yeesho waxaan arka dhimale hadii cunuga hadaa tiraada aniga kuma dhalin cunuga xoqoda gelayso cunuga waxbara maayo cunuga dna laga qaado intaa loo ordo hooyisa meel laga keena waxaaba cunuga inta dhasha iska tuurta subaxa dhul qore hadduu cunuga ambadaya waa loo sheegi karaa laakiin cunug waa lagu tuura soo yaroo markaas dhalaan gunaasha kuma bilaabanaysa cunug wecli ma wecla ka dhigi kartaa may waxaa mentally u dhimanaa mentality u dhimanaa maskaxiin u dhimanaa hadii loo sheego hooyadaa lama haayo aabaha lama haayo depression qaadaa waa dhimanaa maskaxdii u ka dhimanaa ibad adiga waxaa sugaynaa marka midka labaad inuu haddana sheego midka labaad balkan uu soo helay haye u celaa tahay qaab sheega ma aqaani dhahay I don't know hooyadiis oo ka qaatay aniga korsaday duqdi dhashay inay dishay rabtay okay kan labaad bal naga dhaadhic haddana dameer cali soobo and you know what amazing job as amazing so amazing ilmo badan oo saas haystaa ilmo badan oo cil ah haysataa ilaahay kula garab galo boqol kontor si xaq fariida ay tiri cunuga intuudi saawriga aaday haday hooyadii iyo ogaadana waxa dhacday waalidka haye wala ari Canada no bal ay keen aniga ana taa inta laqan gaafina ana ka leeyahay marka dhashaanisi ana soo qaatay erkiisu joogaa maanta you kidding wallahi de هذا حقول ما كان بالله إذا كان كان أصحابنا دول وصلنا لنا حتى عشان يقول إيش حكى كله سصا oh my god قبل ما يلش مركب نويه هو أولاد الصوماليات إن عقوبك قلنا مرة والله بالله والله ضمير على سو waxaan oo ceeb ah waxa isku soo faagfaagtay marka gabar la qabo oo sanad ah oo meel degan oo sharaf leh oo akhlaaq leh oo adaab leh aad ku tilmaantay waxaan u qalmin adigiiba fadara ah haddana waxa idin daaraya isagoo guri islaameed horta gabadhan dhageysta gabadhan guri baa laga haystaa ninkii guriga ka haystay bay wici doontaa bal waxay ku wada sheekaystaan ila dhageysta miya daahirkan ay hadda la hadlayso ma ahan daahir calisow waa daahir kale oo guri xoog kaga haysta oo isla calisowgaas una isla yihiin daahirka una isxiji daahir waxaa waaye reerkii guriga siinaay lahaay guriga siinaay baqaarka ku waa ku kaysata alaabta reerkii lahaay waaye walaalo xoolaheenna ma iska keensiisid ama aad nooga baxdid sax iska dhiibti hadda muxuu leeyahay guri siinaay aa kuleeyahay baqaar ah ma jiro wuu inkiray inuu guri meeshaas ku leeyahan wuu inkiray soo maahan klibka dambe soo socdo isagoo qiranaya daahir cali soo qadka uu kula jiro dhageysan doontaan dhageysta ma qaldan walaalo waa is ogtahay hadda adeerkay soo dishay haddana ma xajkaad ku oraday subxaan allah dhul ma wax loo dilaa waxa ka hadlaysa ma garanayo walaalahay guriga baqaarka oo ninka isbiima aadan maxay ahayd tolo waan waanta kula jirtay aakhirana aad soo dishay waad ogtahay wada fira ma waxaan garanaynaa walaalahay okay Sweden asku arkaynahay marka صح lasla joogaa credit remaining 27 pence okay hadda maxaa maqlayseen ninkan inuu diiday inuu siinaay guri ku leeyahay baqaar ku leeyahay wuu diiday wuu inkiray gabadhan waxay ka hadlaysan inaana aqoonin buu inkiray Soomaa
let's listen cajalada ku xigta. السلام عليكم بو ميا داير ميا Okay, tana dhageysta. alxamdulilah ayaana waxa markaan daahira ninkii gabadhan guriga xoog ugu haystay dameer calasow waa soo qabanaya gabadhan qadka soo gelinaya 3-way conversation allah alaabtan dhageysta ku raaxaysta qadka ku jiro ninkii daahir sheekh Umar ahaa ninkan waa saaxiibada oo saqaano sheekaysanay haye wuxuu yiri asna waa maqla qadka ku jira wuxuu u yiri aniga maamada hadda ka hor asagnay joofiido iyo farxay keenay wuxuu dhul oo basiyo wahay oo siinay ku yilay wuri waxaana diyaar u ah daahiro hadii dhulkii dhul leeyahay xasan qaarso suudiga leeyahay inaad aniga tashanin oo muujiyo oo qaataan diyaar u ahay dhulkii gowmada giri hal arko anigu ninka maanta xoolaystanahay oo baahanin maanta xoolaha u baahan ma nin xoolo heesta ahay aniga dhulkooda uma baahni iyo waa deganaanaya waa sii heesanaya bal isgaliya bal dhigta feerkan galiya idinka hadaynu inkirayay dhul Siinaa ku yaal aniga wiliga markan waxa ka hadlaysid ma aqaani Sweden isku arkeena marka la dhahana xaaladda way isbedeshay oo meesha sharciga ka jiro is not Somalia brother dameer calasow meesha isbaarada dhiganay maaha wadamada sharciga ka jiro hadda wuxuu leeyahay hadii dhulka iyaga yeeshaan waan ogolahay oo dhul aniga aan ku dhasho aniga aan leeyahay oo aan ku soo doontay see cadeynta rabtid maxaa waa intaas ka badan anaa ku dhashay diriska iyo qaan qof walba everybody knows bal dhageysta wuxuu ninkan dhamaysta ama ka suurtooda ka sheeqay dhalay waa runtii soo taasida anaa warka Sheikh Mooryan hidig maaragtay ninkan guriga islaameed haysto oo daahir calasow wakiilka ka dhiganayo dhahay gabadhan ada Yurub soo joogtiin iga qabo oo maaragtay cajaladihii foosho xuma oo gabdhaha Soomaaliya ka qaban jiray ama wixii foosho xuma ka soo qabo oo maaragtay iga rakaatay iyo hadda wuxuu leeyahay sheekh baa idal oo Sheikh Mooryan ah oo guriga islaameed xaraan ku haysta halkee baa lagu arkay Soomaaliya bal dhageysta idinka yaabi doona sheekaysanay taariikhda dib u xasuusto oo aqaan dhalashiisa soo jeedo isaga qadku ku jira marka oo si fiican oo sharaf leh sheekh isu barta dib u joogiya subhanahu Allah ashara wa ishigi shabaar waa ka qadku ku jira marka arinta sida ka dhigan isbarta waa gabadhaas ayaa weey waa ayaan xasan naas suweer weey marka arintaas ayaanay ma wax dhibaat ku qabtay ما أنا اسمعك أنا اسمعك هو يا ساركتين اوكي هو يا ساركتين gabadhan hooyadeed ninka guriga heesta Soomaaliya isku arkay sheekada aan idinka dhacay markay Soomaaliya isku arkay maamada waa loo hanjabay waxaana loogu hanjabay in la dilayo la tooganayo hadii ay mar dambe guriga safaarihiisa ka hadasho maamadii way iska aamustay sidii bay kaga soo tagtay dib dambe ugu meel laabanin gabadhana marka guriga ka daba mirirtay oo maadaama Soomaaliya ay ka dhalatay dawlad caam ah oo loo wada dhin yahay gabadhana gurigeeda ka sabri la xoolaheeda inay ka sabartana waa qalad gurigeedan iyada iska leh dameer calasow dhaxdhaxaadin buu iska dhigay inuu yahay laakiin wuxuu ku qalqaalinayaa inuu guriga isaga magaciisa ku soo wareejiyo oo kadib ayada ku wareejiyo gabadhana doqon ma handa guri iyada ay leedahay sideebay ugu wareejinaysaa daahir calasow magaciisa just use your common sense dhageysta marka waxa ku dhamaatay sheekada hooyaday maanta arkaysa intay jirtaan jira hadda hooyada markay arkay waa yaray ma weyneen intay jirtaan jiraan ku iraba ku sheegay ya marka ayaani arintaas oo okay ma aha sheekh uu soo sheegay soo okay ma dhulkii wuxuu yiri daahiro adiga waa ninka maanta waa ku dhiibtay gacanteeda anigu hadii aan qalad yas leeyahay qabo hadii dhulkii ay yeeshaan reexasa suweer ku wareeji fatay ka saar hadii salahayn in magac la'aan ah magacayaan leega dheeli waa la wada shaqeeyay qaraabanahay sida sharafta badan hanoogu dhamaato uu sheekh waa kan aad u jira maqla okay and taas hal xabaan ka dhahaa sidaas oo ku sheego waay sidaas oo ku sheega waay maxaa sidaas oo ku sheegay ninkan dhagihiisii afkiisa miis maqlaan miya soo tuu wax yar ka hor lahaa guri ani aan leeyahay ma jiro mana ku yaalo suuq bacaad wiligeena ma arkin soo asagii lahaa maahan hadda sidee buu ku dhahayaa guriga soo cabirku sheegay cabirku ka hadlay ma maxay gurigan dawlad baa bixisay dawlad baa laga gatay safar loogooyinkoodii baa hadda idin tusanaya idinku inta ku jira halkan bay ka buuxaan cadeymahoodii bay haystaan culimadii meesha deganeed baa joogta hadday daqiiqad ka hor wuxuu dhahayaa anigu waxa ka hadlaysa ma aqaano mana garanayo haddana wuu aqbalayaa bal dhageysta okay and walaalo
waxaan ka wada hadalnay abuukar garweyne la yidhahdo dubay nala joogay adeerkay waa haa haddana inuu dubay ka joogo weli jooga aan u malaynaayo maxamar uu joogaa inuu adeerkaayo ii sheegay waxaan ku yidhi abuukarow anigu way taqaanaa dad islaameed wixii nama rabo dhulkaana obasiibahaana loo degano shmitaaladii ahaa dadka documentiyada u sheeganaana waa badan yihin niyo qof walba horta guri islaameed dhici raba ama dhul uusan lahayn inuu dhacar raba muxuu ugu marsiyoodaa shamiteerow ahay iyo muxuu ugu marsiyoodaa dhulkan obasiibo ahay iyo hebeloobu ahay war waxaas marmarsiyada iska daa obasiibo iyo waxna ka dab wareegaysanad iyo cisbitaal buu ahaa wuxuu ahaaba dad baa leh usoo dhididay xoolahoodii kusoo gatay war niyo dadkan bini aadankan damiirkooda intuu dhintay waxa adiga shaqaysid maad ku noolaataan waxay ahayd maxaa idinka galay tuuganimo iyo ahbalnimo iyo beliliqo iyo xaaraan haddii lagugu soo koriyo xaaraankaas caloosha weyn laho meesha fadhiad noqonaysaan bal dhagaysta ninkan weyn wuxuu ka hadlay isagan documentedeeda asalkeediina waa la ogaayo siyaad bare intuu joogay aanta gabadhiisu geeska u sheegtay oo dad badan oo kalena u cabiray cadowgaas waxaa la soo saaray wareegta dhahaysa waa laga noqday sideeda iyadoo shimitaaro waa dagaalka dhacay oo derbigii shimitaarada ku wareegtay oo qabare sida ugu yaalaan meesha dadaa kala boobaayay dadkii kala boobaayay qolo ka mid a cabdi macalin oo haddaba meesha joogta anuu ka gatay meesha ii oodan kadib waxaan is aragnay warkaas ay soo gaaray abuukar garweynan arkay iyo gabadh inay walaashaa tahay aan u malaynayo la yidhaahdo filson ee hadda joogtay garan ma kala qaan waxaan ku yidhi dhulka ku leedihiin documenti haddaa haysataan nin kaloo maxamed la yidhaahdo ii sheege maxaa caddaha asna wareeriyo meesha agteeda degan iyo kuwo kaloo iyaguna maxaa cabdi macalina alkaalaya documentiga hayseen ii keena ani adigaa maraan la macaamil ku arka reebeen documentiga haysin ii keena goormay soo galaysaa meesha guriga hadda ninkan uu ku doodayo uu dadka islaameed oo guriga lahaa documentigooda weydinayo asaga muxuu haystaa asaga guriguu degan yahay documenti miyuu u haystaa dadkan guriga iskale markuu dhahayo documenti ii keena bal adiga degan ee sheeganaya qalbigaadana waad og tahay inaadan guriga lahayn yaa documenti ku weydiiyey mase dadka lahaaba documenti weydinaysaa bililiqada iyo xaaraanta iyo guryaha islaameed waa laga fiican yahay aynu dhageysano jawaabta gabadha ee bixisana abdi john markay ii timid gabadha ii keentay john filo ninka la yidhaahdo afrax oo iyadana shaqeyneen aan gurigooda sugu nimid noosana wajii kartaa waxaan ku yidhi ninkii maxaa caddana waa loo yeeray odayga xagga sabriyahay waa loo yeeray oo guryaha meesha kule kalaashada oo dhulka sheeganaya dukuminta ay saarahay waxaa kaloo loo yeeray qoladii kale cabdi macalin iyadoo la wada fadhiyo warkii waxaa furay john wuxuu ku yidhi haweenaa wasaasha usoo jeediyey dhulka sidaa ku leedahay sheegu yidhi waxay tiri dhulkaas annaga wadaadkaas carruurta aan u dhalay shirkaduu lahaa magaca shirkada maskaxda kuma haayo ku qoray shirkadaasaana lahayd adagiina waa dhintay saasa annaga dhulka ku lahayn waxaana noo yaqiinay nin goofla ahaa oo magacaas wata ninka la yihahdo xasan sibriye oo mahacada ahaa uuna fadhiya isaga warkii markay dhamaysatay xasan sibriya warkii galay sida dokumentka ula soo baxay wuxuu waxna kama gadin naagtaan waxay sheegeen wax kama jiraan ana goofla maahayn dhulka laftiga waa laga cabiray halkaas wara ka bixiyey buuqaa meeshii ka dhacay hooyo waa tagtay maalinta hadda horta ayada suukan dambey nagarasi kuma soo noqon marka aniga waxaan badamiyey nin iyo mid jira oo calas oo la yidhaahdo hadda weli waa nool yahay oo waa islaam iyo nin calas oo la yidhahdo waxaan ku yidhi waxaan suma dagaali waxaan ku yidhi dhul cidda yeelata saddex liinan aan kala macaamilaa dowladda inta yimaado hala saar cabir anigu idin dhihi maayo waa basiire saddexdoodii oo maalintaas ay ugu dambeysay midkoodna noqon dhulka horta walaalay waa dhulkaas si lagu sheegay iyo haddii lagu sheego xumeeyada sidii u ahaana haddeer ninkii ahaa muungaab isagoo dhan kulligiis saasaa horta documentiga lagu haystaa uu yahay sidaa lagu deganaana saasay ahayd haddeertaana siduu daahir kuu sheegay haddii aad dhulkaas documenta u haysataan documentar hala keeno hala cabiro hadduu meeshaan deganaan documentiga ka sheekeynaya maxaa waa gurigan qofka lahaayaaba kula hadlaaye adiga deganna documenti ma haysatid bililiqa kusoo degtay iyo xaaraan iyo tuuganimo iyo qaa'inimo iyo ahbalnimo kusoo degtay ninkan documentigu gabadhaan weydinaya la yaabanahayba war waa hadda mithaal ahaan idin tusinaya inta maanka gaaban inta caqliga leh way fahantayba sheekadan inta laakiin caqliga leh gurigan anigoo degan asagoo ebran soo degay qofle ma aqaan waxle ma aqaan iska soo dhex degay
qof baa yimid dhahay guriga aniga iskale mahayo gurigayga iga bax ma waxaan xaq u leeyahay inaan weydiiyo documentiga guriga keen ma anaa iskale waay aan u weydiinayaa documentiga guriga maxaa iga galay midda kale documentiga ay gabadha tusisay halkan ay ka buuxaanba wayba ku wada jiraanba arrinkanna waxaa loo bandhigayaa thaabit waa lala wada hadlay gabadhaasna si degdega gurigooda ku helaysaa dameer calisow saaxib businesskaada wuu soo afjarmay saaxib cajalada ku xigta waxay noqon doontaa wacilnimadii ay idinkaga sheegay maxamed garac wacilnimadiisana halkan lagu cadeeyay anuu hadaaya waa idin sheegay teleefonka iga dama idin dhahay teleefonka soo jaaj gareystay bal horta tan dhameysano maxamed wacil arrintiisana waa galayna asagana okay dhulkaasayti dhul sharciyeysan waaye dhageysta gabadhan say uga jawaabta ilaaha idinku dhaariyay Soomaaliya dulumka iyo gardarada ma fiicno gabadhan hadalkeeda dhageysta oo dhuuxa oo si fiican u maqla superlogadiisa haynaa oo complete ah xitaa dadkii siyaad bare ku wareegay waqtigii aabba uu ku soo wareegay hooyo ku sii wareejiyay superlogadii Cumar Tugunba warqadii oo superlogada looga soo cadeeyay mideeda kaleeto 24 waaye دربيا عاب كوريجي قل لقى مسقولة كدسنا جنجالة أنا صارنا أنا كان كل هذا السديد جرهان إيمت هذا كور وبصيبنا ولي اسمه نقونه 91 كي هذانا عاب يضحكيني وحنا دقنا القلم مورياني gabadhu raba marka inuu hadalka ku celiyo way gabadhan cadeen bay haysataa warka sheegaysa waxba ka jira run weeye si cad bay u sheegaysaa gurigeedu si qayaxan bay u sheegaysaa wuu ku celinayaa saas ma dhihi karno kuleeyahay dhageyso marka dameer calisow wuxuu ku jawaabo saastii mayna anagu hadalkaas wanaagsan raacayna may sida ay wax u jiraan may sida ay wax u jiraan waa moogtahay marka warqadii daahir calisow wuu soo booday gabadhi ninkan wuxuu taagnaa sabar loogada hadlay keeno dameer calisow ba soo booday wuxuu taagan yahay geometry la gelina geometry waxa la geliyaa guri cusub oo la gadanayo fiiriya meeshan confusion ka bilaabay ninkan uu gabadh inuu ka jahwareeriyo isku day waa meeshan geometry la gelinaya geometry guri cusub oo aan la gadanin oo dawladda bixinaysa la geliyaa dadka wuxuu u maleeyaa dam iska xiran war we finish jaamacad ba ka soo baxnay brother dadka daqmo ma ahan dhammaan waxa la soo wada bartay Soomaalida ninka ugu liita high school buu soo dhameeyay geometry macnihiisa waa guri cusub dhul bixin ah la cabirayo cabirkaasna lagu siinayo way gurigan guri cusub ma ahan way geometry loo gelinayaa intaas raba inaan weydiiyo marka dhulkaas sax waayo oo dhulkaas Daahir Cumar uu degan yahay iyo sabab loogahan waa isleeyahay dil yiraahdo الله رسول باني أنا بقى فرت كسارة أمو كجليا أمو كجبحيا هذه اللي يدرك كان أبصيبه واي أو جو سبحان كان وكان غير كان وعمل جهك كلا ودلي هذا جهاد عسكري وياي الأدينا أوكي وامرك أنا كان إنجنير كقدم بيكون كدول ريقاتي last August ويدحجي تعال سوى وفي يعني جو مثلا تعال سوى Why is it so hard ninkan maxay ugu adag tahay guriga islaameed inuu isaga baxo oo xaraan jecla guriga islaam inuu dhaho akhyaar inta idinka deganaana miya afiseen masakiraad iga rabtaan haddii aadan wadanka imaanaynin ma idin sii deganaada ilaa dan ba ay haysa meel kale aadama haysto there so many ways qofka loola hadli karo gabadhan laga yaabay inayna guriga ka saari lahayn ninkan ay u sii deen lahayd ilaa waa nin daruuf hayso dan hayso tawar hayso aqoon ku filan aana lahayn xoogiisa si loo cuno aanan aqoonin weeye inuu ku madax adaygo guriga islaameed oo uu ka bixi kari waayo oo uu ku madax adaygo oo ku dagaalamo oo geometry la geliyo oo hooyadii gurigan lahayd wadankii laga buriyo oo la dhaho waa lagu dilaya haddaad ka hadashid bal taas Soomaali Maxamed baa ka warrami doonta geometry la yaqaano oo xamar kala saar dhulka oo saxiix ahaana soo kala cadaynayo warcad waay warqadana marka adigan ku tusinaa habartayna beecay u rabtaa marka sheekh Daahirna oo diray waa ku kalsoonaa waliba hooya may wax dhiba ma labo hooya haddii xamar joogto hooya u dirto warha u dirna warmaamada laga dilin
على كل حال أنا يعني وهاي هرت درا لا قلت أنا واحد ما نرها معي اوكي رالي اهو انت انكو افلقاتي daahir dulmay gabadhan laga galaya marka fiiriya iyadoo xoolo ka maqan yihiin guri ka maqan yihiin dameer calas oo lacag ka daldalanayo oo ilmihiisa xaaraanta ah ka biilanayo uu leeyahay guri baan ku soo dhicinaya iyo hadana iyadii si raali gelinaysa qofkii wax ka dhacay subhanallah alsoon waa maqlaa islaamadina dilana ilaahay ma baahin waxaan haystaa namaysanayaan weyn oo ruwaayaan ka tagaayo nin diin la nahayo nin caamiyo diin hadda leedahay guriga ma dhiibtid war guri war ilaahay amarkiis war diintan la sheeganayo war diinta dadka haystaa ay xaraan ma cunaan oo guri xaraan ma dagaan oo ilmahooda isbaaro kuma biilaan oo isbaaro kuma kordhiyaan oo waa maxay diintan la sheeganayo xoolaha islaameedna xoog lagu haysta war ilaahay amarkiis badana war diinta islaamka ma gadaal ma laga soo bilaabay sida u naqaanay maahan ma si kala loogu dhaqmaa diinta ma la kala wareejiyay yaab dardara iska soo xasanaya maahay wala way xaq waa leeyihiin oo aniga ugu jira diinkiina ku jira kama duwan hadii lagu jirina dadka nahay a'uudu billahi inta waa dun halkan joogtay adeerka ku korweyn waa naqaana hada qoolaal kartaa beer jireec way waxa beer jireec way waxa naqaana inuu haa iyo yaano isarlagaadeen hadii aniga xaqina waniga ila jiro ma joogina ku jira kama duwan ya ugu warxamay adeerka ما انت اللي ورحمه وليبا او أو كنا معطي أو شاسوا جليا دومترين جليا على أي سوكر عدي أريد أسوي هذا ما يسألني كشيء هذا وأوكينا أرجع علي دوم دحوية هاي وكان شيء كيسني وحوي وصله هو وهدان ربع أصوات لورها فتك السعراء وأنا أباني وحاس يجينا قفوا يسقى توكر فيها ودار على السوق السوق ها مبتع waxaan rabaa kaan ayaan habeen dawad waxa ay yimid in la yiraahdo bunow okay Soomaaliya ay u jeedaan guryaha islaameed xaraan buu ku haystaa qabiil oon ahayn buu sheeganaya war habargidir waa gob dhashay weeyaan sax meel walba businesska Soomaaliya maanta iyada iska leh Nairobi wax kaga badan habargidir ma jiraan dadkan meesha ku jira qabiilka qalbiga ka dagay halka wada buuxdo qoqdada iska saara garacaas idinka maada dhalin habargidir ma ahan uu sheeganaya uu idin sheeganaya magaciinu dil rabaa nin walbo Soomaali maanta rabo inuu maaragtay loo arko coolga inuu habargidir sheegto waa qalad habargidir dad sharaf leh waa ka dhashay haddana waxa idin daaraya codkii ka ku xigay marka oo noqon doona isagoo booteynaya marka ma waa bariis waxa ay shahar aan ku brief gareeyo ani inta information ka haysto ayaa rabaa inaan ku brief gareeyo wixii adna waxa la waa qalad wixii sax ah waa sax wuxuu telefoon ka go'ay oo digay shay isma naqaana tiri kaasan sawir isma naqaana kuwa waa idin gadaal idin kaga daaraya ساتاي maxaa jirba hadda marka wuxuu ka sheekeynayaa tuugta Soomaaliya joogto oo dhan buu ka sheekeynayaa daawada dhageysta inta qof uu la hadlay oo direct ula contact gareysa dameer calasow iyo halkan ku kashifaya dawladda Soomaaliya waxa idin sheegaya usqug oo dhan inuu ka buuxa idin tusinaya bal ninka dhareerka ah ee aanan meel la haysanin raggan uu soo wacay ee uu ku maaragtay ka dhaadhicinay qabiil iyo qurun iyo waxaan loo joogin inay ku taageeraan bal dhagay isaga iska shifay daahir cali soo joog waa laga kari waay war soo joogniyo kor iyo hoosba kula hadalnay hadda waxay maraysaa xaasaskii la qabay xalaasha ahaa iyo ubadkii xalaasha ahaa inaad aflagaadaysid bay maraysaa bal dayax dal nuur shakligii ku ekaata oo ummadda iyo xaasaskooda iyo carruurtooda iska daysa diidi kari weysay Soomahan qof ceeb aanu lahayn dusha sokamada saaran ceebtaada maanta ku raaxayso walaal macaan raaxayso laakiin ayaan xasan aasif taasay leedahay kamar ayaa loo dhawo Axmed Daaci intaasuu leeyahay isugu dhawaanina Axmed Daaci intaasuu leeyahay iskugu dhawaanina waa maqlaysaan Soomaa yaa yaqaan Axmed Daaci who knows Axmed Daaci dhageysta idin kugu soo celinaya dhageysta
saaxib farmaajo indhihiisa waa inuu kala fura madaxweynaha iyo waxaan uu ka ag shaqeynaya usgugiinta kala jirin ee dhammaadka ah ee labuujiilayaasha khiyaanolayaasha ah ninkan baa kashifay dhagaysta taasay leedahay yaa loo dhawo axmed daaci intaasuu leeyahay isugu dhawaanine daar calasow intaasuu leeyahay yaa loo dhawaane dhulkii maantan dalaalkii ay soo cadaalin hadduu ahaan lahay garaashka lacag waa gooyo badan la ma fahamta ya hadduu garaashka ahaan lahay maya xamu u lehay ya waxa gooyey dhulkan adinka annaga aan yeelanay ayaa saxaa birimo ah mugta oo laamiga loo saara kaas maa lacag badan ay dheheen gabadhii isku dayayaan inay manipulation ku sameeyaan dhul iyada ee lahayn oo aan sabarloog loo haynin oo cid kale laga soo dhacay in ayada lagu qaameeyo oo la leeyahay dhulkaada lagaa haysto dhulkaana ka qaalisana dhulkaan qaado waa kaarta talyaani waa awow maafi inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kana fiican leeyahay kii hore kan dhulkan garaashka waxay xamuugulahay dhul la kala bedelayo maartan dhul la kala bedelayo dhageysta idin kugu soo celinaa dhageysta dhulkaadi kana ka fiican kan qaado waa dhul la kala bedelayo dhulka baabuur ma noqdo mise mobile la kala bedelanayo noqday dhageysta lacag badan ay dheheen kana fiican leeyahay kii hore kan dhulkan garaashka waxay xamuugulahay soddon kun waalaya ilaahay hooyaa ku qora ya jibiil ma qad ku jirto dhulkaas dalaalinta loo diray maanta 3 dalaal oo maanta la diray oo Axmed Daaci diray oo aniga diray oo wiil kale oo diray waxay dhulkaas konton shan waay Axmed Daaci iyo dameer calisow waxa ka dhaxay idinkan igal rabo Soomaali maxamed laga rabo Axmed Daaci gan dawladda ku jira iyo ninkan dameer calisow connectionka ka dhaxay soo saara wallah marka waxa hayka dadka ku way u weli kara dalatiin adika la waagelayna hayta konton shanta waa boqolaalaab la sheegay hadda boqolaalaad laga rabo inaad ku wada dhulku soo xireeyay laga rabo inaad keento dadka okay ninka diyaar oo ka yahay miya okay marka warkaasi wadi meena waxa laga rabo taqaana laga rabo inaad isku xirto aniga hor dhaw ay waash gabadhiyo marka hadda shaxaad ku bilaabo dhulka waa kugu soo dhicib wax ka jira male waxaan ramadaankii bay ahayd oo maleynaya goorto dhulkan soo bilaado sheekadiisa ilaa hadda gabadhii wax loo soo celiyay male adaa laga rabaa buu leeyahay inaad isku laabatid marka oo hirig kala keentid hirigtan kale waa laga qaadaa gabadhan masaakiinta gurina ma haysato dameer calisow dhacla gaajada tay ku yaa gaajo kala jiro saamiyahay intaasay farto ala amilla ya la dhawaan intaas waxaana ayaa la isugu dhawaanin ya aad sheekada konton ku soo aruurtay konton 50,000 hadda boqol ya waa konton boqol okay oo waliba soo dhisanay ya aso waa dhisan yahay maho jinkada la miyaa wax ka dhisan bo waa la fiiqday booliyo dhan ay jinkad ka dhisaan mugtahay guriga saasay u ogeed jinkada laga dhisay waxaa soo ka dhigaya dhibaataas laakiin lacagta noo gudmay aan $200 aan damacinay okay may ninkii ku noqonaa dhahay adiga waxa dhahay dhulku maanta waa leeyahay wixii hadda ka dambeeyay ya ina xasaadana wareediyahay ya ina xasaad wala ana weydiiso ku dhaafo okay marka hada waxa laga wadaa inaga gabadha dhulka saaninkan anigu wali kuma dayin ninkan lama hadin wali laakiin okay ما ويلكم محمد سيف محمد سيف ما waxa uu weyse مسكين gabadhan waa la jahwareeri
ku yeelay booska 200 ku jooga hadda xalii 30 booska 200 joogo tukun subhanallah gadana aad u dheh marka ana ka gadana toban qaado waa feerna asaan ku noqona bal maxamed seef ko aan waxa ii sheegay lacagta badane maxamed seef waa weydiiyay aniga rag madaxaadkii bani ma sheegi karo kaas wuxuu ku imaama asma dhaha maxamed seef ma ku dhahay hadda dhageysta marka meeluhu wuxuu idiin sheegayaa waran ninkan habar gidirta sheegana wallahi kan habar gidir ma wallahi inuu habar gidir yahay nacladan saan u dhaqmayana dhaqankan habar gidir ma ku noqdo wallahi dhageysta markaan dhageysta maanta maxamed arba ku xigo gaciya ku xigo maanta sheegana ninka waa nin al-shabaab waa ahlu sunna waa isku raacay ma fahmi هذا وكم مخلع جميلة قد كنت جبت هاي والله حدان حاسوك هذا في والله حيني والله حيو وحلو الشيخ يا بوتي فاندم وانا حيقول رجعوا دار عسو هالبوس مع طلب بوس انا عليها فيها حمرك فيها ضرب ما فهمت هاي فيها صدق مرة وقفك الواحد ويستمر جومتر قشو جومتر مدح بنان قشو صار بريو اللي نيم وصل كاسري وكاسا صوق قشو وحي عند احمد يا وعي بريو جومتر كوكينا ايه لعقته يقرا يسوي جومتر كان ده سو روغيا كوسو جلنا ايميل ايه فيرسو فهمت نيجي نجي هنا ما انت نيجي هاي محمد انا ويسوع قربت وحو دايرو هذا وضع صدق جاي يبدأ يقدر يعني مالي كنا هو طبعا وكي هداي ديدا odaygii diiday dhahay gurigaas ma aqaani aniga cajaladii ko idin daaray hadaa xasuustaan dhahay wiligay ma arkin dameer calasow hadda wuxuu ku leeyahay way iga taalaaniyo meel aadama aqaanay familka meel yar ka deganahay igala hadalo ay dhahay marka hadaay uu diiday ka soo maahan hadda muxuu u leeyahay jiqa igu tahay zakiika igu tahay iga wareejiya maxalada ayaa guriga deganahay nacraba laga qaabto dhacay hadii Allah ina dikraba lacagan bixiha marka ayna xoogay bixina hawri oo taxan gashay idi oo jaaf halay dar meeshii dadka aan la dhaaf dacwadayda محل ilaadu waa soo wiigan meesha dadka wari weyso waa ka jibeen kuri xabadan kaas kaas abo in laga bixiyo waaye koos gurigii waxa gabadhan daacadnimadeeda la yaab ninkan waxay u aaminaysaa maxaa ka galkaas in laga bixiyo waa kaas insaan la yeelo waa kaas war lugooyid ugu weyn kan inuu yahay gadaalay ka fahmi doontaa miskiinta iyadana mar laakiin 100,000 laga sii marayo waa 100,000 keen waa ku keenayna si loogu haygo si looga qaado walaashay wallahi ina qoslo ma ahayn laakiin hal mar haduu ka qaado laba mar ka qaado ninka ma ku sixray $100,000 ma sixir buu kaaga qaaday suu kaaga qaada ilaa hadda iga dhaadhicila 2,000 keen 3,000 keel garacan u dir garac kale Hargeysa ii joogo u dir hebelo u dir kan u dir kii kale u dir subhanaka miska wade baash waay ilmaha kala barkood ay ku dhasheen ninkan oo adee ahna been ma ku sheegay teleefanadiisa anima ku seenino intaan waxaan ku iri xamaraan u soo socdaa mid hodan ku yaalan ku siinaa kan madiina noo banay wuu soo galay dameerkiyaa soo galay dameer calisow waa ku jirtaa saaxib meeqan ku lahaa geela yaa ciinka ka celiyo freedom of speech bay baratay freedom of speech bay baratay dameer calisow saaxib guryaha islaameed ee xaaraanta ee lagugu soo صاحب والله نحرسته والله وحيابها كلام كاه يا صاحب هذا أدو دينتك بحيان هيا أقسم بالله أدو دينتك بحيان هيا وأصلا نمد أقفيان هيا وأصلا نمد كتفيان هيا والله مسي أرسيد ده وكاس دمر على صوبه أرسيد ده وكاس أدو دينتك بحيا سيدا ده وكاس أر سيدا مهايو ده عجلة نمر قاتبين نقول دونتا أدا أفكار كده سيدا أنصقر
dameer cala soobo ilmaha islaameed laga horta isku raaxayso codkaada ku raaxayso mis maqashaa yahay ama meel kale ku yaala dadku aaga agaarka ama ku yaala sidoo ogaateen halkaas mis maqashaa yaa xaqiijiyay geometric gariyo yahay waxaan rabaa in lagu hubisaan inta qarashana gala ugu wada geometric gariyo هاد aabaa ku wareeji derbiga aabaa ku wareeji dameer calisow in meeshaan maxaa umalaysaa inayd ku dhamaanaysa hawshaana awowa sheekadaadii laga daba teg saaxib aniga saanaan ah aniga kanaan ah aniga waryaa xaasaska lama cayo doqonkaa tahay was xaasaska islaameed afaarahooda lama galo intaanoo fadeexad ah iyo intaanoo ceeb ah goormaynu kaa qarinayna mataqaana oo aynu lahayniyow islaamka lama ceebeeye iska da ilaahay baa ceebtiisa asturi doona adigana mar unbaa ilaahay ceebtaada asturaya mar waad ka dartay laakiin ka darey bay noqotay xaaladaada mar waad isku xaartay markaad gabadha islaameed afka la gashay oo ummadii afka la gashay oo ilmo xalaal ah aad adigoo xaaraan haysta oo aadan aqooninba si xalaal loo dhalo xalaal ereyga xalaal baa dhibaya ninkan waaba antahay xalaal dameer cala soobo antahay xalaal baaba tahay adiga xalaashaaba ku dhibtoba guri waa xaaraan isbaaro waa xaaraan ilmihii waa xaaraan kale meeshuu hadda joogo waa xaaraan war adiga goor aakhir naarta dadka caadiga la geliya inaad geli waysaa ka baqaa wallah abi jahl iyo naarta la geliya mid kasii xun in lagu geliya ka baqa aday because the day aqaan gaartay ilaa hadda xaaraan baad ku dhex jirtaa xaaraan goormay marka jannada carafteeda iska daayay arono adi mid lagu gelin doono kitaabka inay ku olin baa ka baqayaa naarta adiga lagu gelin doono jahannamada adiga lagu diyaariyay jahannamo kuwan salaada ka tagay iyo oo maaragtay faasiq noqday oo ilaahay ku caasiyaha laakiin adiga caasinimadaada xargaha goosatay caasinimadaada dullimaad ku darsatay munaafiqadnimaad ku darsatay shaydaannimaad ku darsatay naartaada kitaabka qur-aanka amayba ku olin subxaan allah wallaahi billahi tallah waa kuu baqayaa dameer calisow dayaxdal nuurshe dhegaha ka garaac saaxib iska dhici laakiin xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo awlaadiisa iyo gabar walbo soomaaliyeed oo la qabo afka kalama geli kartid ma cayn kartid waa daciifnimada waxyaabaha daciifnimada ah weeyaan waxyaabaha daciifnimada ah ay ka mid tahay cunug dhan nin uu cunug u dhashay farxad ku jira reereen ku jira seed ugu soo afdhiiran karta inaa xaaskiisa aysid war isku raaxaysaniyo adiga isdhagayso shirkad taamo waa wareejisnaay adigoo calaacalaya oo gabadhan dhahayo guriga aniga magacayga ku soo qor kadib baan adiga kugu soo wareejinaya sida caruurtii 100 kuna gabadhan ka cuntayna waa mid inta kuu marila oo caloosha labada kiintaale ka soo saartay indhahana ku tirtay saaxib foolxumadaada laga nasan kari la ilaahayga naga badbaniyo alxamdulillahi rabbil caalamiin oo Soomaaliya ilaahay u mahad celiyo ilaahayga dameer calisow idinka dhigin ilaahaygi waxaas idinka dhigin iyo maahuurkaas ilaahaygi idinka dhigin alxamdulillahi rabbil caalamiin dhaha fadeexad buu ku dhex jiraa diinta islaamka isagoo ka baxaya halkan ku jirta waka ilaan diinta qofka caaya islaamnimo ma haysto islaamnimada wuu ka tagay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey in lagu dhaqmo lagu kala dambeeyo la karaameeyo laakiin mar hadduuba diinta u gafayo ninkan waa waalan yahay bay baratay waa waalan yahay waqtimo waalida hadda toos u waalan dhagayso waryaa isdhagayso haddii joomita la geliyo oo dhulkaan iyo sorloga isma laha ayla waa dhamaatay waa hadal naga dhaca moogta hadalka kaa dhaca haddii joomita lagu daro ku yaal dhulkiina maaha dhulkiina halkaas kale ku yaala haduu ku yidhaah maya habarta hadda ku wacaa koo laba nin injineer geometrikii injineerka ma isku mid ah injineerka waa geometrika ugu sheegaha tartiiba talyaani miihi aniga marka ma ogtahay marka ii sheeg injineera $1 iga qaatay goormaynu ceebtaada asturayna waana joogaa hadda madaxa soo qabsanaa haddii oo maxay ahayd toole oo islahaan waaye $1 ka rabaa siinaayo gurigaas uu dhex jooji gabadha maskiinta walaashan $1 waxay ahayn ma dirto iyada kuna ugu yar waxay dirto alaabtii oo kuna u weyn kuna u yar kun le laga dirin waaya gabadhan leen u soo geliyay wixii asaga ahay dhan oo leen u soo geliyay sidiisoo kale wixii ahaa leen ku jiraan kuna soo yacday taagan yihiin kaalaya waliba video waan ka soo duubay haddan hooyaa tilmaamayso horta injineerada xamar hal injineer ugu fiicansan maqlay daacina waa soo sheegi doonayaa kuwa oo notaariska waxaa ugu fiican hal notaaris oo ilmaha sacdalaya ma fahamta kaas leeba aabbahe dhulkiisa dhan wada wareejiyey moogid aabihiisaa wareejiyey
amiina hadda joogo laakiin aabihiisaa wareejiyey waa abtigay ninkaas arkaysid aniga waxay dhashay Faaduma ay dhashay markaas ninkaas waa abtigay oo amiin waxaan soo arkee agoosle hadda lasoo dhaafee xasan qaasin ma taqaande oo furtuucal amiir ma taqaande gabadha maskiinta ayaa marka musbay qaataan joogmitarada mooga ma layga qaatay in lay dhex joojiyo ku yiro waa ka la yiri farta laygu fiiqo daahiro waxaa yaalo superlogadiyaa taal koodhe superlogiyaa yaalo may warqadii cumar tugun baa haynaa superlogiyaa haynaa jiro qatar aan jira aan maqla hadda ya may hadda waxaa hayaa warqadii oo superloga tii cumar tugumbe naqshadii nootaayihii lagu wareejiyey amiin aabihiisaa laga wareejiyey abtaamiina dhaa aniga intaasaa iskor saara inta la tago meel oo super cafe ayaa waxaa la sameeyaa scan la soo wada geliyaa waa la soo wada scan gareeyaa marka scan gareyso meeshaas aad kasoo scan gareyso waa ka tirtiraysaa may kulli taleefankeygan ku wada sawiraa ani scanal gurigu ii yaalaa laakiin taleefankeeda ku sawiraa emailkeyga ku dira emailkeyga marka emailkaaga kaga soo diri karaa haddaa heli kartaa haddii aa emailkaaga iisoo dhigtid fiberka ama anywhere raallina ahow waxa waaye telefoonka sawir hadda ma rabo anigu sawir waa sheeka iyaasiiyo sawir ma rabo waxaa rabaa in lasoo scan gareeyo markaasuu si uu qadkiisu u dhexyaa inuu nadiif u noqdo inuu ka dhaco haddaa ka shakida ii sheeg because scanner picture al dhahamaho scan laakiin musawira hadda si nadiif buu sawira waxay noo soo qabanaa haddaa ka shakisa waa isoo wacay waxaanayti waxaa isoo dirtay wax ma ahe ku celi dheh dameer calisow haddaa ku iskaan gareyna calaalka ha calaalin brother this is you saaxib saas adigoo u calaalaya gabadha maskiinta xoolaheeda ka dhacay emailka kusoo dhigaa warqadaha waa kuusoo waxaan kuusoo diraa maxay qofkan email ma qabtan le waayo qofkan le fiber ma qabta maxay taa numberka iga soo fiber ma hamiya ayaa sawir ani haa waa qabaa email fiber maxaa kii oo sawirka kugu soo dhigi waayo beriga sawir kugu soo diraay maxaan ka ogahay hadda imigi soo wicin waaba ujeeda miskoolkaaga waaba karaabe ma soo galaayo dambeer kala jirin dheh oo kuu nasteexeynaya marka weliga iyo allaha waxaa ku xigo maxamed carab garaci baa ku xiga garaci adeerkiis isagoo adeerkiisba qadka soo gelinaynaa aabihiis la dhashay markaan leeyahay adeerkiis aabihiis la dhashay contradiction bay sameynaysaa garac adeer ma yeesho abti unbuu yeeshaa soo maaha laakiin garacan aabihiis xaaraan buu ku dhalay waa la yaqaanaa aabihiis laakiin everybody knows aabihiis waa la wada yaqaanaa everyone knows aabihiis regardless of wax kale oo maaragtay oo iska dhaadhiciyaan laakiin dad baa moodo marka inaan aniga hooyo Soomaaliyeed haddana u gafayo uma gafayo cunuga markuu garac caadi yahay adigoo hooyada ula jeedin baa cunuga wuxuu yahay inaad tilmaantid niyo runta anigu kama gamban karo aakhirka waxaan ka baqayaa Soomaalidan runta san ugu wado inay sas iga qaadaan oo iga kala cararaan oo iga sasaan oo iga didaan war qofka markuuna aabba lahayn oo ama xaaraan lagu dhalay meher inuu ku dhalanin bal maxaad ugu wacdaan magac siiya idinka wakaas haddaan idin daarayaa adeerkii aabihii la dhashay yaa ku jira idinkan idin daarayaa bal idinka magac u bixiya maxaan dhahaa waayahay waxaan dhihi lahaa ii sheega walaal macaan oo tell me marka dameer calisow next time tii haddana wakaas cardaar dhowkaas adigoo dhahaya khamri xashiish balaayo baas ku dhex jira fisqi ku dhex jira video lagaa duubay baa halkan ku jira right now halkan buu yaalaa video fawaaxisha gabdhaha ka duubi jirta mid ka mid un baa kaasoo duubtay adigana waka halkan buu ku jiraa wallaahi oo bilaahi waxaa u naxayaa maqrib baa la taagan yahay uqsim billah waxaa u naxayaa indhaha ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta indhahooda wax xun inay arkaan baan diidayaa daahir calisow
ummadda soomaaliyeed indhahooda wax xun inaan tuso laga yaabay inay caruur daawanayso, laga yaabay inay dumar daawanayaan, laga yaabay inay dad waaweyn daawanayaan. indhahoodan ka qarinayaa fawaaxishtan meesha ka socota. waxyaabahan aad ku kacaysid haddii aan hal mar ku aadiyo wallaahi sumcadaada iska daaya, taydaa wax u dhimaysa. waayo waxaan meeshan ku jira iyo gabdhaha masaakiinta ah ee aada saa u galaysid oo aada nolosha ka wada ridaysid ee lagaa soo duubayo daahir nin weyn baa tahay, wax fiican maaha, wax kuu wanaagsanna maaha. tan labaad, tan waa kaa daynayaa. qaladka labaad ee aada geshid buu u noqonayaa ciqaabteeda. horta maanta ciqaabti ahayd tan baa kugu filan. guryaha islaameed ee aada xaaraanta ku haysatid iyo adiga iyo maaragtay cunugii ninka hadday sheegaya magaciisa muxuu ahaa, kii dowladda ku jira magaciisa muxuu ahaa, iyo daahir calisow maxaa ka dhexeeya. that's one thing horta inaan ogaado wey. taa waa inaan ogaado. dowladdan annaka waynu taageernaa, waynu sabood gareennaa, cirkaynu gelinaa, wixii laqdabo ku wadana saanoo kalena banaanka u keennaa, waa soo banaankaa soo dhignaa. marka waxaa rabnaa inaan ogaano adiga iyo hebelowgaas aad sheegaysay waxa idinka dhexeeya. kow. midda labaad, qofka haddaad is haysaan asaga isku dhammaada, laakiin reerkiisa iyo faamiligiisa iyo afaarihiisa lama galo. weliba adigoo garacyo kuu joogaan oo dhahaya dhowr caruuro makugu celiya. horta soo dah makugu celiya waryaa, ma dhegaysanaysa adigoo ilmahaada inkiray? makugu celiyaa? ma rabta inaad dhegaysatid waryaa saqajaanow, inaad dhegaysatid ma rabtaa? nin rag baatay, ilmahaada ha inkirin, iyagoo xalaal ahna xaaraan ha ka dhigin. waayo hadda afkaadeena kuu